الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إلهي بمهضة runtii xaqiiqada waxaan dareemayaa culays iyo mas'uuliyad hawsha baaxadaas leh la ilmaday dadka Jubbaland ay idmadeen waxaan halkan ka cadeynayaa inaan aqbalay kow laba waxaan ku codsanayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala weydiisanayaa kana baryayaa inuu ugu asturo xilkaas oo si mas'uuliyad ku jirto oo cadaalad ah oo intii bini aadamku gaari kara inaan u guto inuu ilaahay igu hanuuniyo igu hadiyo igu duwo waxaan takala leeyahay reer Jubbaland oo haddii aad tihiin siyaasiyiin iyo waxgarad iyo culimo iyo dhaqan iyo dhalinyaro iyo hooyooyin iyo hablo guud ahaan haddaad xilkaa ii dhiibteen oo idin magacaabateen iguna ijbaarteen inaan aqbalo oo hadee waxaan ahay qof idinka tirsan aan cadaadiskiina darteed aqbalay waxaan idinka codsanayaa hawshaa inaan laygaga harin oo layla qabto dhinacyada oo laygu kaalmeeyo sidii aan u gudan lahayn guddiga aan guddoomiyaha u ahay anugu intaa markaan intaa kaga soo gudbo waxaa aad noo dhiibteen shaqo baaxad leh oo loo baahan yahay 4 sannadood ee soo socota annaga oo kaashanayno una fududaynayno odayaasha dhaqanka baarlamaankii labaad ee Jubbaland sidii loo soo xuli lahaa inaan odayaasha u fududayno taasna hadda kolley baarlamaanka dooran doona baarlamaanka ayaa dooran doona madaxweynaha oo annaga shaqo noo taala ma aha waxaan halkan ka cadaynaynaa inaanu odayaasha dhaqanka iyagoo xor ah gacan iyo tasiiraad ka siin doono inay kursi walba oo ka mida baarlamaanka labaad ee Jubbaland ay u soo xulaan hal xildhibaan labiyo dhadig ama gabadh iyo rag wuxuu doonaba ha noqdee taas waa mid weeye midda labaad dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo bulshada caalamka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Jubbaland ee uu ku dhawaaqay isbedel doonka bulshada Jubbaland ay ku dhawaaqeen oo xilkiisa maanta ula wareegay si rasmi ah waxaan ka codsanaynaa bulshada caalamka ee dawladda federaalka inay gacan ka siiyaan tasiiraadkii ay kula shaqayn lahaayeen ugu dambeyn waxaan ballan qaadaynaa annagoo dhowrayna xeerarka doorasho ee dastuurka federaalka ee Soomaaliya iyo ka Jubbaland oo wixii laga waayo sida ay uu dastuurku dhigayo loola noqonayo xeerarkii hore iyo dastuurkii 60kii in aan odayaasha gacan ka siino si ay u soo xulaan si cadaalad ah iyagoo wax cadaadis haysan odayaasha dhaqanka ee Jubbaland inay u soo xulaan baarlamaanka Jubbaland. هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي أد بو مهتسيها قدوميها أدي أد بو مهتسيها مسؤولية دي حلكة وقاضي